قرآن كريم كأه تفسير كيسا يمعنيه صلى برصه وأرين رنتي هذه مهمة إلى القرآن كوحو أسود الشيء ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إن معناها وفي الصدان وضدكم معناها قرآن كفهمان كدبنا يكو عمل فلا مركب فهمك هي أجدد أوه الرئيسة حتى حفظك قرآنك وحكمهم سن فهم كيس مركب واللغة عربية لغة عربية هيد أما الروح اللغة عربية يقنا فهمي كرا أما الروح الله فسره ساس درادد بالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كمرك النبي كبرنا يا waxay marka hore qaadan jireen 10 aayadood 10 ka aayadood ay macnaha ku jira iyo iyagaba baran jireen marka kadib ay 10 kala qaadan jireen sidaas ay quraankii iyo cilmigii ku jiray iyo amal falkiisiba hal mar u wada qaateen laakiin inaga qaabkan wax u barano waxa inaga khaldan quraankii oo dhan baan wada naqaanaa bal waxa dhici karta inaan wada xifdisanahay laakiin inaan garanaynin waxa uu ka hadlayo iyo cid uu la hadlayo iyo muxuu jideynaya iyo muxuu diidan yahay iyo muxuu ogol yahay marka waxay u baahan tahay inuu ruuxu quraanka macnihiisa xoog ka saaro fahamkiisa